kulana baan idil ahaantiin ku soo dhawaada channelkeena Shariif Show qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa hanjabaad culus u jeedinaya Masar maxay tahay waqtigan talaabada ay qaadi doonto Masar maxaa keenay goondinta waqtigan iyo waliba sidoo kale talaabada labada dhinac waqtigan ka soo ifbixaysa waxa sidoo kale la warinaya in ciidamada Masar kooda ugu xooganaa ay markaasi ay ka shaqeynayaan sidii awood military ugu soo bandhigi lahaayeen dhoolatus adag ayayna markaasi banaanka ay keeneen xiriir inta la ayaa markaasi ka dhaxeeyay Israa'iil iyo waliba Masar talaabadan ma u muuqataa in mar kale awoodda dunida dib u soo laaban karta hadii Masar iyo waliba sidoo kale Israa'iil waqtigan loolankooda siyaasadeed hawada dib ugu sii qarxi karo dhinaca kale ciidamada militariga Masar waxay aad u xoojinayaan qorshe adag ay banaanka ay keeneen awood military oo waliba dhoolatusteeda ugu dambeyd ay waqtigan qaadeen hadaba Israa'iil ma loo baqa waqtigan in duulaan culus ay ku qaadi karto Masar waayaha adag xilligan Israa'iil wajihi karo iyadoo u muuqato Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu dunida oo dhan si guud ahaan markaasi ugu ceebeysan yahay haatan Masar ayaa mar kale u goondinaysa sidii weerar culus u qaadi lahayd dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wacad ku maray in si xoogan loo socon doono dhaqdhaqaaqa awoodda military waqtigan Masar ay la soo ifbaxday waxa sidoo kale barnaamijka aad ku daawan doontaa shirkadda tamarta dawladda Turkiga Tobiya loo yaqaano oo isna markaasi heshiis safgarad ah laga saxay shirkadaha tamarta ee Mareykanka markaasi Churchill ay si wadajir ah ay u sahminayeen go'aan ay ka soo saareen shidaalka gaaska dabiiciga ah ee markan la shaaciyay hadaba door intee leeg ayay ka qaadan doontaa Turkiga sidees isaga difaaci doonto qorshaha waqtigan ku soo foogan in markaasi Mareykanku loolan adag dhinkiisa soo gali doono tamarta shidaalka ee Turkiga waqtigan la xoojinayo qodobadaas waliba waxa kale soo kordhay wararka caalamka iyo Soomaaliya ku faaqidi doona daqiiqadaha soo socda marka hore waxaan ka dalban inaad qayb ka noqoto nagu soo biirto si saaxiibada joogtada wararkan caalamka iyo Soomaaliya la socdaan aad qayb ugu noqoto mahadsanidin soo dhawaad saaxiibada Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo warbaahinta ka hor hadlay ayaa sheegay in ciidamada Masar ay aad u soo xoogeysanayaan waxaana markaasi leenahay ayuu yiri xiriir dano wadaag ah oo u dhaxeeya Masar iyo Israa'iil iyo sidaas darteed waa inaan si adag ula soconaa arinta isla markaana aan ka hortay karna awoodda military ee xadaafka ah markaas laga dhisayo dalkaasi Masar ayaa soo bandhigtay ciidamadii ugu badnaa abid taasi oo ugu goondinayso waqtigan inay dunida ay ku tusi karto awoodeeda military iyo waliba qorshaheeda kaga aadan maxay tahay waayaha ugu adag ee waqtigan ay wajihi karto Israa'iil ama Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isagoo oo howl gelinayo guud ahaan ciidamada halkaasi ka shaqeeya walibana fariin adag ayuu u diray wasiirka arrimaha gaashaandhigga Israa'iil taasi oo u muuqato waqtigan in mid la mid ah dhoolatus iyaguna ay soo muujiyaan si Masar ay ugu weecato awoodda military iyadoo ay ku faanayso waana qorshaha ugu adag ilaa ay haatan aan talaabo culus laga qaadin sidoo kale Israa'iil ayaa iyadoo duqeymaheeda awood laha ay ka fulinayso qaybo kamid ah Gaza ayaa haatan la tilmaamaya in mar kale awood military ugu faani karto Masar tan iyo bilowgii waxay si adag loolan ugu jirtay sidii markaasi ciidankeeda ay dib ugu howlgelin lahayd awoodda military ee kala dhaxeeyda waxaana la tilmaamayaa in arrimaha Israa'iil iyo waliba sidoo kale Masar mar kale ay dib u qarxi karaan oo awood ahaan iyo waliba sidoo kale military ahaan iyada oo hubka diyaaradaha kooda ugu culus waqtigan oo muuqata in labada dhinac ay si dhoolatus ay kaliya u soo bandhigeen laakiin wali xiisada kama aysan dhax qarxin oo xiriir qoto dheer ah ayaa ka dhaxeeya Masar iyo waliba Israa'iil ilaa ay haatan qorshahooda wali lama hirgelin oo talaabo adag oo inama aysan qaadin laakiin goondin culus ayaa waqtigan socota dhinaca kale shirkadda tamarta dawladda Turkiga Tobiya loo yaqaano ayaana heshiis safgarad ay la saxiixatay shirkadda tamarta ee Mareykanka JVC ay markaasi wadajir ugu sahminayaan gunka soo saarka shidaalka gaaska dabiiciga ee arintani waxaan markaasi shaaca ka qaaday ama banaanka keentay Alfarsa Barkhaytar iyo waliba soo kale wasiirka tamarta ee Turkiga firo gaar ah hadaba heshiiskan wuxuu yimi saacad kadib markii Jerfos oo markaasi kamid ahaa shirkadaha ugu waaweyn ee caalamka ee sahminta iyo waliba soo saarista shidaalka iyo gaaska isla markaana leh tiknoolajiyada aadka markaasi u horumarsan ayna ku heshiiyaan ama heshiis hordhac ay ku gaari karaan si ay markaas ula gasho dawladda Suuriya si ay qayb ay ugu qaadato horumarinta iyo waliba
soo saarista shidaalka ee gaaska dalkaasi. dhanka kale shirkadda tamarta ee dowladda Turkiga Ethiopia waxayna sidoo kale rajaynaysaa in heshiiskani cusub uu markaasi u sahli doono ballaarinta howlaheeda iyo waliba kordhinta wax soo saarka Ethiopia sahmintana markaasi ugu badnaan doono kuwada ugu awood leh. heshiisyadan ayaana u muuqata in ay si weyn wax ugu bedeli doonaan fursad weyn ay ugu abuuri doonto Georgia, fursadan oo ay door muhiim ah ka qaadan doonto horumarinta kheyraadka tamarta ee waliba sidoo kale qayb ka mid ah Soomaaliya waliba iyadoo dowladda Turkiga ee dhankan iyo waliba Soomaaliya sahadin xoogan ugu soo jirto sidii shidaalka Soomaaliya ku jira qayb ay ugu geysan lahayd soo saaristeeda iyo waliba ka qayb qaadashada heshiiskan. waxaa sidoo kale lagu arkaa tallaabada istiraatiijiyadeed ee Turkiga uu ku doonayo inuu ku yareeyo cadaadis kasta dhanka Mareykanka ugu imaan karo, gaar ahaan xilli markaasi maamulka ee madaxweyne Trump uu muujinayo tartan sii kordhinaya kuwana aadan gacanta ama gacan ku haynta sida goobaha tamarta iyo waliba kheyraadka lahi ee ku jira Soomaaliya. hagaag hadii la dhamaadkaad la soo gaartay kamid noqon saaxiibana sida joogta wararkeena caalamka iyo Soomaaliya la socdo naguna soo bir mahsanidin.